salaamullaahi calaykum halkan ay daawanaysiin waa wanaagga qoyska allah ugu barteen wararka ugu dambeeyay barnaamijka xiiso leh wararka cawdeen waxaa kamid ah waxaa maanta maxkamad la soo taagay madaxweynaha TikTok oo lagu magacaabo Bilaal Bulshaabi waa kan wariyeen Xasan Biiwaay oo nagu soo waran dhankaas Muqdisho oo noo faahfaahinaya wixii maanta maxkamadda ku xukuntay. Bilaal Bulshaabi ama madaxweynaha TikTok ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku xirnaa magaaladaasi Hargeysa. maanta oo Khamiis ayaa maxkamadda Hargeysa waxay ku xukuntay in mar kale xabsiga lagu sii hayo muddo 7 cisho. markastoo maxkamadda la horkeeno ay kooxdani ama maamulka Somaliland ay dib u dhigayeen maxkamadeyntiisa. wiilkan oo ka soo jeeda magaaladaasi Muqdisho kana imaaday magaaladaasi Muqdisho si uu soo booqdo deegaanada Somaliland asagoona ah nin aad iyo aad caan u ah TikTok ayaa waxaa la sheegay in maqaayad ka mid ah maqaayadaha magaaladaasi Hargeysa uu ka dalbaday shaah lagu xardhay korkiisa calanka Soomaaliya asagoona soo dhigay shaahaasi bartiisa TikTok. saacado gudood ciidanka Somaliland ayaa xabsi u taxaabay milkiilihii maqaayadaas kabiyeerigii asaga siiyay shaaha iyo asaga naftigiisa walow markii dambe la soo daayay labadii kabiyeeriga oo u dhashay Somaliland. Bilaal Bulshaabi ama madaxweynaha TikTok ayaa haatan maraya dhibaato uu kala kulmay muuqaal yar oo uu soo dhigay bartiisa TikTok kaasi oo maanta sababay in muddo bil wax ku dhow uu ku xiran yahay magaaladaasi Hargeysa. Somaliland ayaa inta badan ka kaftamin arrimaha ku saabsan siyaasadda Soomaaliya iyo dadka soo faragashta arrimaheeda qaaska ah ee goor isku taaga. Somaliland ayaa ka go'day Soomaaliya 1991 walow aysan ka helin ictiraaf caalami ah adduunka, laakiin waxa la isku raacsan yahay in qadiyadooda aysan marnaba ka kaftamin ayna inta badan xabsiga u taxaabaan dadka u dhashay Somaliland iyo kuwa u dhalanba ay ku xadgudba waxyaabaha ay aaminsan yihiin. maaha markii uu horeysay Somaliland ay xirto qof calan Soomaaliyeed ku dhex xirtay magaalada Hargeysa ama shaah ku cabay ama guri dhigtay laakiin xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo ka horeysay Bilaal Bulshaabi waxaana caan ka ah dad badan oo Soomaaliyeed sida suxufiga caanka ah ee Cabdimaalig Muuse Culdoon, gabadha Naciime Abwaan Qorane, wiilkii lagu dhex garaacay magaalada Hargeysa asagoo xiran calanka Soomaaliya, gabadhii gurigeeda ka dhigatay ama sariirteeda gogosha ka dhigatay calanka Soomaaliya iyo wixii la mid ah.